kulanti wacan oo wanaagsan khiyaaray ku soo dhawaada muuqaalkeena sanadka cusub ee caaw ku duubeyno studio Altos ee dalka Sweden. sanadka cusub 2016 waxa stuudiyahan aanu barnaamijka ku qabanayno Altos uu inoo suurtageliyay inuu inoogu marti qaado fanaanka da'da yar Kamal Maxamed Aadan Kaywan Cadde oo dhinacayga bidix fadhiya. Kaywan ku soo dhaw iyo waliba muusikiistaha caan baxay waa Ilyas Cabdi oo loo yaqaano Sayli Casood. dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada studio Altos iyo barnaamijka sanadka cusub ee 2016. waan doonahay aad baad maadsantahay waan doonahay sanad cusub baan ku leeyahay sidoo kale waan doonahay sanad cusub. haddaba marka la yiraahdo sanad cusub iyo waliba sanad waliba dadweynuhu waxay sugaan ama ay markay arkaan muusikiiste iyo waliba fanaan waxay dhagta u taagayaan heesaha markaasi fanaankan uu soo waday iyo waliba muusikiistuhu sida habeenkaasi uu la damaashaadayo dadweynaha. haddii aan ku hormaro Kamal Maxamed Aadan Kaywan Cadde ku soo dhawo barnaamijka sanadka cusub ee studio Altos aan caaw ku qabanayno. waan dhowahay caawan waxaan hayaa heeso cusub maadaama ay tahay sanadka cusub. aad baad mahadsan tahay. dib ay dadku ka daawan doonaan muuqaalka iyo waliba heesahaasi oo caawa inoogu talagalay Kaywan Cadde. waxaase dhinacayga midig fadhiya muusikiistaha caan baxay waa Sayli Casood oo isagu in badan ay ku barteen music macaan iyo waliba garaacista pianada. hay Sayli Casood, maxaad caawa adiguna aad diyaar ula tahay maadaama Kamal uu diyaar u leeyahay heeso cusub inuu dadweynaha u soo bandhigo, adiguna bal muusikadaada maxaad ka maqashin kartaa? aniguna waxaan horta aad baad maadsan tahay. waxaan ka maqashin karaa music fiican oo live ah. horta kulley qurbahan aan joogno lagama baran live oo dadka Soomaalidu waxa fanaaniinta maaragtay lagu bartay DJ baa lagu bartay. kolka anigu waxoogaa waxaad moodaa inaan ka duwanahay oo maaragtay maxaan ku dhahaa live aan tumo. kolka live kuna waxa weeyaan waa music aad iyo aad uga fiican oo xitaa la heli karo, qofka laga heli karo heeskii laga dalbado laga heli karo. kolka caawa keena waxaan hayaa live music baan u hayaa caawa uu sanadka cusub kula ciidayo. aad iyo aad baad mahadsan tahay. waad u jeedaan sida markaasi Sayli Casood oo caawa inoogu soo bandhigi doono muusikada macaan oo waliba sida live-ka inoogu tumi doono. waxaasan ka marnayn fanaanka caan baxay waa Kamal Maxamed Aadan Kaywan Cadde oo isaguna hees diyaar la. markaan su-aasha ugu horeysa ku weydiinayo Kamal Maxamed Aadan, waxaad ka mid tahay fanaaniinta da'da yar ee dhawaan ka soo ifbaxay qurbaha, isla marhaantana lagu bartay heeso macaan iyo waliba muuqaalo sida horeyba aad u soo bandhigtay heeso hore. caawa waxay tahay waa 1 bisha koobaad sanadka 2016. sida inagu maqaalo ahna amase aanu ognahay fanaaniintu sanad waliba waxay diyaariyaan heeso ay ugu talagaleen dadweynaha inay markaasi habeenka sanadka cusub kula damaashaadaan. adigu heesta ugu horeysa aad u soo qaban lahayd dadweynaha waa tee? horta heesaha way iska badan yihiin. heeso badan oo aan sameeyay way jiraan. caawa heeso badan oo cusubna waan hayaa, ma fahantay? dhanka muusigana waxaa si aad iyo aad iga caawiyey ama igu tumay macalinkeyga oo caawana barnaamijka igala qaybgeli doono, Ilyas Cabdi oo ku magac dheer Sayli Casood. heesta ugu horeysa waa magaceeda? heesta waxaa la dhahaa Xurmo. aan soo qaban doonaa barnaamijka ku furo doono. okay, heesta Xurmo adiga ayaa ku luuqeynaya, miraha ayaa iskale? miraha iyo laxanka waxaa iskale abwaankeyga Cabdi Fataax oo ku magac dheer Cabdi Fataax Jimmy. muusikada macalinkeyga Ilyas Sayli Casood. haddii aad wax naga maqashiiso heestaasi erayo iyo lababa maxaad dhihi lahayd? horta waxay ku wanaagsantahay markasta in mataqaanaa heesta sida ay tahay in loo qaado. waxaan dhihi lahaa mataqaanaa si live inaan u qaado macnaha ka jeclaa lahaa intaan barnaamijkaan live-kaan u gudagelin. xiisaha kalgacalkiyo xanxantooday
markaan xasuusta muuqaha. runtii waxaa la dhihi karaa heestaasi aada ayay u macaan tahay markaad dhegaysato codka macaan ee markaasi fanaanka uu ku qaadayo balse waxaan ka codsanaynaa fanaanka inuu inoo soo gudbiyo heestii oo dhammaystiran daawasho wacan. kalkiyo xan tooday markaan xasuusta muuqaha iisaha kalkiyo xan tooday markaan xasuusta muuqaha حقيق ويعشقو حربو دسايو حكم بولي حي حقيق ويعشقو حربو دسايو حكم بولي حي أديقنا حرموي حركي سديدو هل حرالاتك يشي أديقنا حرموي حركي سديدو هل حرالاتك يشي xilliguna soo maray taariikhdu dibay u sii xusaysaa xushmadiisu waa xiriirkiisa adkaado aqaloo xariiqe xiriirkiisa adkaado aqaloo xariiqe adiguna xurmooy xerkiisa diido hal xiraalaadka yeeshe adiguna xurmooy xerkiisa diido hal xiraalaadka yeeshe waan filayaa inay heestani ahayd hees aada u macaan welibana markaan usoo laabto fanaanka kamaal maxamed kiwaan cadde ma markii kuugu horeysaa music live ah oo markaasi musicisti kula fadhiyo aada ku qaado hees?
ها waa markii ugu horeysay aan hees live aan u qaado anigoo joogo studio waan filayaa inay tahay fanaan markaasi ku dayasho mudan welibana sida horey loo arki jiray fanaaniinta qurbaha waxa ay ku qaadaan muusikada sida qaar aanu ka aragnay CD ama markaasi DJ u tumaya muusikada u gelinaya iyada oo diyaar ah balse caawa waxaa daawanaysaan muusikistihii Sayla Casood oo isagu tumaya muusigi iyo waliba fanaankii oo hortiina ka heesaya mar kale ku soo dhawaada barnaamijkeena sanadka cusub 2016 oo aanu idinkaga tabinayno studio Altos ee dalka Sweden waxa idin la socodsiinaya anigoo Xasan Liisho waxaadna hadii rabbiga awood leeyahay haduu idmo had ka daawan doontaan sidoo kale Liisho show ayaad ku daawan doontaan barnaamijkan barnaamijkeena ayaan dib ugu laabaneynaa mar kale fanaanka oo isagu caawa heesaha inaga qabtiri doona muusikiistuuna oo halkan inoo joogo waxaa tahay muusikiista caana oo isagu heesad badan tumay ma jirtaa fanaaniin aad ku dhiirigelisay in ay heesaha ku qaadaan si live ah way jiraan fanaaniin badan oon ku dhiirigeliyey in ay live ku qaadaan marka live-ku uu fiican yahay oo waxa uu kaga duwan yahay waxa weeyaan fanaankii waxa maaragtay dhacaysa in uu codkiisii ka shaqeeyo oo codku laftigiisu waa wax u baahan in laga shaqeeyo oo boardka in laga duuliyo ah oo fanaanku waxa weeyaan maalinka ka dambaysa codkiisu uu qarxaa laakiin fanaanku haddii uu maalinta uu hees qabanayo ama uu hees cusub de matalan maalinta uu qabanayo haddii uu heeso uu codkiisii ka shaqeyn waayo ما دي عدكيسي ما قرحيو ما نصير في عنانيو كلها وحويان waxaan de kula talin lahaa fanaaniinta Soomaaliyeedna waxaan kula talin lahaa in ay iska dhaafaan maaragtay DJ-gan iyo waxan oo music live ay raadsadaan oo xalfadaha marka ay ka qayb galayaana ay live ku heesaan ayaan anu kulliba kula talin lahaa ma jirtaa mararka qaar caqabado ama culeysyo kala soo gudboonaada fanaaniinta xilliyada live-ka music aad ugu tumaysid way jiraan oo isku mid maaha fanaaniinta laftigooda kuwan maaragtay DJ-ga ku heesaba laftigooda qaar aad u fiican oo iyaga oo maaragtay CD ku heesaya marka aan matalan meel xalfada ku kulano qaarkood waxaan arkay si fiican live-ka ugu heesa oo waxaan raggaana kula talin lahaa fanaaniintan waxaan kula talin lahaa live-ka ay ku heesayaan ay ku qurux badan yihiin in ay sii xajistaan kuwa aan weligood live isku dayinna waxaan oran lahaa live-ka isku daya live-ku aad buu fiican yahay weliba markaan waxaan tumay waa organ qura waxa ka sii fiican marka qalabka orchesterkii oo dhan qalabku dhan yahay music quruxdiisu taas weeye weliba aad mahadsan tahay mar kale aan dib ugu laabano fanaanka codka macaan Kamaal Maxamed Aadan Kewan Cadde oo isagu markaasi caawa inoogu marti ah barnaamijkeena sanadka cusub ee aanu ku qabanayno studio Altos ee dalka Sweden sanadkuna waa 2016 Kewan haddaan dib ugu laabano heesahaaga cusub caawa aad ugu tala gashay barnaamijkan sanadka cusub maxaa ka mid ah heesta labaad oo noo soo qaban lahayd heesta labaad magaceedu waxaa la yiraahdaa baxsan adigoo israacsanaya muusikada miraha iyo waliba heesta qaabeynteeda yaa iska lahaa ereyada iyo waliba laxanka waxaa iska leh abwaankayga Cabdifataax oo ku magac dheer Cabdifataax Jimi oo aan halkan ka salaamayo inkastoo barnaamijka uusan nagala qayb qaadan muusigan waxaa tumay macalinkayga oo caawa asagana martay inoola ah Sayla Casood heesta inoo soo qabanaysa markan magaceeda maxayse ka tarjumaysaa heesta waa hees jacayla magaceedana waa baxsan waxaa la dhihi karaa heesaha caawa aad soo qabatay isla mar ahaantaana aad dadweynaha ugu tala gashay waxay yihiin intooda badan heese jacayl ah barnaamijyada kalena waad uga bogan doontaan heesa intaa ka badan uu fanaanka iyo weliba fanaaniin kale oo aanu idiin qarinayno idinkugu soo wado bal aan dib ugu laabano heesta uu erey iyo labo inooga yidhaahdo fanaanka Kewan Cadde baxsanay daruufuhu waysa soo bareeraan noobadi dulqaadko balanteenadkee
واو الله إله وحبا كدعي وحن فيلا يا هستني إن إنتا هست جعيل سيدا وفنانكو كدواجيه كيوان أنا بقول لك افتبه هستن جعيل هي كده عدل ليه إن هست واحد سمي أبوانكي إن عبد الفتاح جيمي طبعا إن أسيقا اللي معنا لو يدين كرا معنا واحد كوساب سنتاي أسيقا اللي جعل هذا معنا هست هذه يا دمات سنتاي waxaan filayaa in fanaanku heesta ka booday oo walibana abwaanka dusha ka saaray kulleeto abwaanka ayaan ka wareysan doonaa heestani cidda ay ku dhacday jacaylka ama se uu alifay balse aan markan ka codsado kaywaan cadde in heestii oo dhameystiran uu inoo soo gudbiyo حاوينكو ياي بربرتو داوتو بلالو ديغايو أقلو بلاي وبلي حاوينكو ياي بربرتو داوتو بلالو ديغايو أقلو بلاي بحسني بلدي دحدينيو عاشقا بحنانيني ولي واي وانو بينو لهاي بحسني بلدي دحدينيو عاشقا بحنانيني ولي واي وانو بينو لهاي إنكو براريو نور الباحد ويين بالهي نسيو نغاليو بريحي قريولي درحس لو بغيبي وقلمتينو تهاي إنكو براريو نور الباحد ويين بالهي نسيو نغاليو بريحي قريولي درحس لو بغيبي بلنتينو تهاي سنة دروفه ويسا صوبريرا نوبر دلقاتكو قلمتينتكي بحسنة دروفه ويسا صوبريرا نوبر دلقاتكو قلمتينتكي حسوستيو بدنكان كو قري برقي كل كان بلودي بوقي حسوستيو بدنكان كو قري
nasiyo bari iyo nugaaliyo berihii qoryoole dalxis loo bogeebe balanteenu tahaye inagoo baraariyo nolol baaxad weyn bilaheen nasiyo bari iyo nugaaliyo berihii qoryoole dalxis loo bogeybay balanteenu tahaye waa tahay daawadayaal intaasi aynu ku dhaafno heestii baxsan uu inoogu luuqeynayay fanaanka codka macaan kamaal maxamed aadan kaywaan cadde kana mid ahayd heesaha ugu talagalay sanadka cusub ee 2016 waxaase mahad gaara mudan muusikiistaha caan baxay Ilyas Cabdi oo ku magac dheer Sayli Casood. Sayli Casood aad ayaan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qiimaha badan ee aad na siisay nagalana qayb qaadatay barnaamijkan caawa sanadka cusub ee 2016 aan ku qabanay studio Altos. aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan ku leeyahay sinad wacan oo wanaagsan inaguna mid lamida ayaanu ku leenahay waxaase aan isna markaasi leeyahay fanaanka codka macaan kamaal maxamed aadan aad ayaad u mahadsan tahay waqtigaagaadna siisay caawa nagala qayb qaadatay barnaamijka sanadka cusub ee 2016 sidoo kale adigana aad iyo aad u mahadsan tahay intaasi ayaanu kusoo gabagabeynay barnaamijkeennii sanadka cusub ee 2016 kaanu caawa kula caweynaynay studio Altos ee dalka Sweden waxa iga caawiya barnaamijka dhanka kaamirada Cabdilaahi Altos waxaase barnaamijka idin tabinaya anigoo Xasan Liisho intaanu barnaamijkan mid lamida hawada ku wada kulmi doono waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh